asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. taariikhda islaamka waxaa ka buuxda qisooyinka saxaabadii waaweyneed ee sharafta badnayd, kuwaasoo ummadda ay waajib ku tahay in ay ku dayadaan oo ay wax ka bartaan oo ay ka faa'iidaystaan wararkooda iyo qisooyinkooda quruxda badan, si aan u noqonno ummad wanaagsan oo wax wanaagsan ka dhaxasha dadkii wanwanaagsanaa. daawadayaasheena sharafta leh, qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay saxaabi jaliil ah oo ka mid ahaa saxaabadii nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam, oo aan siiradiisa quruxda badan ka faa'iidaysan karno casharo iyo waanooyin iyo weliba cibro qaadashooyin fara badan. wuxuu nabigu calayhi salaatu wassalaam saxaabigan ka yidhi: low kaana addiinu cinda thuraya ladahaba bihi rajulun min faris aw qaal min abnaa'i faris xataa yatanaawalah. haddii ay diintu xiddigaha agtooda yaalli lahayd ama la dhigi lahaa, waxaa aadi lahaa oo halkaas ugu tagi lahaa nin faris ka mid ah, ama wuxuu yidhi nin faris awlaaddiisa ka mid ah, ilaa uu ka soo qaato. saxaabigan wuxuu ahaa nin aad u caqli badan oo aad u dulqaad badan, wuxuuna ka mid ahaa raggii ugu waaya aragga iyo cibaadada iyo suhdiga badnaa. wuxuu nabiga calayhi salaatu wassalaam ka wariyey axaadiis aad u fara badan, wuxuuna ahaa nin nabiga sala allahu calayhi wasalama laasimi jiray oo saaxiib dhow la ahaa. haddaba waa kuma saxaabigaasi? waa ibnulislaam salmaanulfarisiy abu cabdullah radia allahu tacaala canhu wa ardaah. haddaba maxay ahayd saxaabigan jaliilka ah qisadiisa? sidee buu majuusiyo iyo dabcaabudis intuu ka baxay u qaatay diinta nasraaniyadda? maxay ahayd arrinta la yaabka lahayd ay dhacday markii uu la kulmay nebiga calayhi salaatu wassalaam? magiciisii hore wuxuu ahaa rusbah ama maabah binu buudakhshaam. wuxuu ka soo jeeday qaryada la yidhaahdo isfahaan oo ku taalla iiraan. qisada islaamnimadiisana isla isaga naftirkiisa ayaa inooga sheekeeyey radiallahu tacaala canhu wa ardaah. wuxuu salmaan ahaa nin farisi ah oo ka soo jeeday meesha la yidhaahdo isfahaan, qaryadaas oo uu madax ka ahaa aabbihiisa. aabbihiisa ayaa jacayl uu u qabay awgiisa inta badan ku celin jiray guriga oo u diidi jiray in uu aado bannaanka. wuxuuna haystay diinta majuusiyadda, darajo iyo mansilo sare oo uu ku dhex lahaa qowmkiisa awgeeda ayuu wuxuu ka mid ahaan jiray kuwa shida dabkii ay caabudayeen. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu salmaan soo hormaray kiniisad ay qolo nasaaro ahayd lahaayeen. markaas buu wuxuu ka maqlay codadkooda xilligaasoo ay dadku ku dhex tukanayeen. kadibna wuxuu la yaabay salaadooda, maxaa yeelay horay uma uusan maqlin oo ma uusan ogayn, taasoo ay sabab u ahayd celintii uu aabbihiisa ku celin jiray guriga. kadibna wuxuu la cajabay oo uu ka helay salaadooda iyo diintooda. kadibna wuxuu waqti badan ku qaatay oo uu la dhex joogay kiniisadda dhexdeeda. markii uu xaafaddiisa ku laabtay ayuu wuxuu aabbihiisa u sheegay wixii uu soo arkay. wuxuuna u sheegay niyaddiisa iyo in uu soo jeclaaday diintooda. kadibna aabbihiisa ayaa ku diiday fikraddiisa, salmaanna wuxuu ku adkaystay aragtidiisa. kadibna aabbihiisa ayaa intuu qabtay xargo ku xerxeray si uusan u bixin oo uusan u soo nasaaroobin. salmaan wuxuu ahaa nin diin u oomanaa oo xaqa raadinayay oo doonayay inuu ka gungaaro. wuxuu maalinkii uu kiniisadda galayayba dadkii halkaas joogay soo weydiiyey halka uu ku yaallo asalka diintooda.
markaas bay waxay u soo sheegeen in asalkooda ama markaskooda ugu weyn uu shaam ku yaallo. wuxuuna dadkaas ka dalbaday in ay u soo sheegaan markii uu wafdi ooga yimaado shaam xaggeeda. markii uu wafdigu yimaaday ayuu wuxuu ogaaday in ay yimaadeen, kadibna waxaa u suura gashay in uu ka baxsado xabsigii uu ku jiray oo uu raaco oo uu la baxsado wafdigii shaam u socday. kadibna wuxuu salmaan radiallahu canhu soo gaaray shaam. kadibna wuxuu kiniisadba ooga sii gudbayay kiniisad kale, kadib markii uu ka baxay diintii aabbayaashiisa ama awowyaashiisa oo ahayd majuusiyadda, ilaa uu ugu dambayntii soo gaaray nin wanaagsan oo ku sugnaa meesha la yidhaahdo camuuriya. ninkaas ayaa wuxuu ku yidhi, waxaa kugu soo dhow zaman uu nebi soo bixi doono, nebigaasoo lala soo diri doono diintii nebi ibraahim calayhi salaam, wuxuuna ka soo bixi doonaa dhulalka carabta. kadibna wuxuu u hijroon doonaa dhul u dhaxeeya 2 xaradood. xarada waxaa loola jeedaa dhul leh dhagaxaan madmadow ama ay ku badan yihiin. wuxuuna isagoo dhulka ugu sii sifaynaya ku yidhi, waa dhul timirtu ay ka baxdo. nebigaasuna wuxuu lahaan doonaa calaamado aanan qarsoonayn. wuxuu cuni doonaa hadiyadaha, balse ma cuni doono sadaqooyinka. waxaa labadiisa garbood dhexdooda ku taalla khaatimkii ambiyada. wuxuu ku yidhi, haddii aad awooddo in aad beledkaas sii tagto, sidaasi sameey. intaas kadibna waxaa geeriyooday ninkii wanaagsanaa oo uu salmaan la joogay. muddo kadibna waxaa camuuriye yimid safarey ama wafdi ganacsi oo ka yimid carabta xaggeeda. kadibna wuxuu salmaan ka codsaday in ay horay u sii wadaan oo taa beddelkeedana ay qaataan wuxuu haystay oo xoolo ahaa oo ari iyo lo'ba isugu jiray. salmaan ma ahayn nin adduunyo doon ah, balse wuxuu raadinayay in uu helo caqiido kaafisa. kadibna wafdigii ayaa arrinkaas ku waafaqay oo xoolihiisana ka qaatay oo horeyna u sii kaxeeyey. kadibna markii ay soo gaareen meesha la yidhaahdo waadil qura, ayaa waxaa dhacday in salmaan ay khiyaanaan wafdigii uu soo raacay. markaas bay addoon ahaan uga iibsadeen nin yahuudi ahaa. kadibna wuxuu muddo la joogay ninkii yahuudiga ahaa oo addoon ahaan u kaxaystay. isla markaasna wuxuu arkay in halkaas ay timiri ka baxdo, wuxuuna niyaddiisa iska yidhi oo uu rajeeyey in uu soo gaaray meeshii uu u sheegayay ninkii wanaagsanaa oo uu camuuriye kula noolaan jiray ka hor inta uusan dhimanin. kadibna maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa yahuudda u yimid nin ka mid ahaa bani qurayda oo ay qaraabo ahaayeen. kadibna ninkaas ayaa salmaan ka iibsaday yahuudigan, kadibna wuxuu u kaxaystay oo uu geeyey yathrib. yathribna waxaa loola jeedaa halka hadda loo yaqaano madiinatulmunawara. kadibna si sax ah ayuu salmaan u gartay in uu soo gaaray halkii uu ninkii wanaagsanaa oo uu camuuriye kula joogi jiray uu u tilmaamay ka hor inta uusan dhimanin. wuxuuna ku gartay xarataynkii uu u soo sheegay. kadibna waxaa la soo diray ama la soo saaray oo nebi laga dhigay nebigeena muxamed calayhi salaatu wassalaam oo xilligaas ku sugnaa makatal mukarama. balse salmaan ma uusan maqlin akhbaartiisa maadaama uu ku jiray nolol addoonsi ah ama addoonnimo ah, ilaa uu nebigu calayhi salaatu wassalaam u soo hijrooday madiinatulmunawara.
xilliyada ka mid ahayd ayuu Salmaan isagoo ka shaqaynaya ninkii addoonsanayay beertiisa wuxuu maqlay nin kale oo ansaarta caynaya, isagoo ku caynayay in ay raaceen oo ay isugu tageen nin ka yimid Makkatal Mukarrama iyagoo aaminsan in uu yahay rasuul xagga Alle laga soo diray. wuxuu Salmaan radiyallahu canhu hadalkaas maqlay isagoo geed timireed kor saarnaa. kadibna si degdeg ah ayuu uga soo degay geedka, isla markiina wuxuu abbaaray ninkii uu hadalkaas ka maqlay. markaas buu ninkii intuu qabtay ruxay isagoo ku dhahaya, maxaad tidhi? ku celi waxaad dhahday. kadibna ninkii Salmaan sayidkiisa ahaa ayaa Salmaan ku dhuftay dhirbaaxo aad u xoog badan, caro uu ka carooday sida uu Salmaan xilligaas u dhaqmay awgeeda. habeenkii markii la gaaray ayuu Salmaan intuu raashin diyaariyey kadibna intuu qaaday la aaday Nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam xaggiisa si uu ugu soo dhoweeyo. isla markaasna waxaa Salmaan niyadiisa ku jirtay inuu ka soo hubsado calaamadihii uu ugu soo tilmaamay ninkii wanaagsanaa. markaas buu soo fadhiistay Nabiga sallallahu calayhi wasallam hortiisa. kadibna wuxuu bilaabay inuu ikhtibaaro oo uu ka eego calaamadihii loogu soo tilmaamay. markaas buu Nabiga raashin u soo dhiibay isagoo ugu sheegay inuu yahay raashin sadaqo ah, waxaana u caddayd inuu raashinka u baahnaa maxaa yeelay wuxuu ogaa inuu safar ka yimid oo uu gaajaysanaa calayhi salaatu wasalaam. balse rasuulku ma uusan cunin sallallahu calayhi wasallam, taa beddelkeedana wuxuu u qaybiyey asxaabtiisa iyo dadkii la joogay. kadibna wuxuu Salmaan u soo dhiibay raashin isagoo ugu sheegay inuu hadiyad yahay. markaas buu rasuulku cunay sallallahu calayhi wasallam. wuxuu Salmaanul Farisi halkaas ka xaqiiqsaday 2 calaamadood, balse waxaa u dhinayd calaamadii saddexaad. kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala qadaray inuu geeriyoodo nin ka mid ahaa muslimiinta. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu raaci jiray janaasada. xilli ninkaas lagu duugayay qabuurihii Baqiic ayuu Salmaan u yimid rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo meel fadhiya. markaas buu intuu salaamay kadibna bilaabay inuu ku agwareegsado rasuulka calayhi salaatu wasalaam. kadibna rasuulka sallallahu calayhi wasallam caqli badnidiisa iyo waxfahmidiisa degdega ah iyo fatinnimadiisa awgii wuxuu isla markiiba fahmay in Salmaan uu doonayo inuu arko oo uu xaqiiqsado shay mucayan ah. markaas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam go'iisa ka riday dhabarkiisa. kadibna waxaa si waadax u soo muuqatay khaatamkii. Salmaan markii uu arkay khaatamka oo uu xaqiiqsaday, isla markiiba Nabiga intuu ku soo dugay ayuu isku duubay isagoo dhunkanaya oo ku oynaya. kadibna wuxuu Salmaan Nabiga sallallahu calayhi wasallam uga warramay qisadiisa oo dhammaystiran. intaas kadibna waxaa Salmaan mashquuliyey addoonnimadii iyo addoonsigii uu ku jiray, ilaa uu dhaafay dagaalkii Badar iyo dagaalkii Uxud isagoo Nabiga sallallahu calayhi wasallam kala qaybgalin. intaas kadibna wuxuu Nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi, kaatib yaa Salmaan, taasoo loola jeedo sayidkaaga heshiis kala soo gal si aad isku furato oo aad isku xurrayso Salmaanow. wuxuu yidhi, waxaan sayidkee kula soo heshiiyey in aan 300 oo geed timireed ah oogu beero beertiisa, oo weliba ay wada baxaan 300ba iyo weliba 40 wiqyadood oo dahab ah. kadibna wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ku yidhi, aciinuu akhaakum, caawiya walaalkiina.
wuxuu yidhi, waxay saxaabadu igu caawiyeen geedaha timirta. Ninbaa wuxuu ii keenayay 30 wadiyadood oo loola jeedo 30 xabbo oo timirta geedaheeda yaryarka ah. Ninna wuxuu ii keenayay 15 wadiyadood, ninna 10 wadiyadood. yacni qof walba inta uu awoodo, ilaa ay iga soo aruuriyeen 300 oo geed. wuxuu yidhi, kadibna wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam igu yidhi, Salmaanow, soco oo soo qod godadkii lagu tallaali lahaa. Markaad wada qodidna ii imow, aniga ayaa gacantayda ku tallaalaya. wuxuu yidhi, markaas baan godadkii soo qoday, iyagoo asxaabtayduna ay igu caawinayeen, ilaa aan ka wada dhammeeyey. kadibna rasuulka ayaan u imid sallallahu calayhi wasallam oo aan u sheegay. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ii raacay beerta xaggeeda. markaas baan innaguna usoo dhowaynaynay geedaha, oo rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam gacantiisa ugu tallaalayay godadka. wuxuu yidhi, waxaan ku dhaartay allaha ay Salmaan naftiisa gacantiisa ku jirtee, ma jirin hal geed oo iga hallaabay ama iga dhintay. waxaan wada guday timirta, balse waxaa igu dhinnaa dahabkii. kadibna waxaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam loo keenay dahab la ekaa doorada ukunteeda oo kale oo khaniimo ahaa. markaas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, muxuu sameeyey faarisigii mukaatabka ahaa ama heshiiska ku jiray? wuxuu yidhi, markaas baa la iigu yeeray. kadibna wuxuu igu yidhi, dahabkan qaado oo isaga soo gud wixii lagugu lahaa Salmaanow. markaas baan ku idhi, rasuulkii Ilaahayow, xaggee bay intaani kaga dhacaysaa waxa la igu leeyahay? wuxuu igu yidhi, qaado, alle waa uu kaaga gudi doonaaye. wuxuu yidhi, markaas baan qaatay oo aan uga miisaamay. allaha ay Salmaan naftiisa gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartaye, 40 wiqyadoodba intaan u oofiyey ayaan ka soo xoroobay. kadibna waxaa nebiga sallallahu calayhi wasallam kala qayb galay dagaalkii Khandaq. maalinkaas wixii ka dambeeyeyna wuxuu yidhi, ima dhaafin dagaal walba in aan kala qayb galo nebiga sallallahu calayhi wasallam. salmaanul farisi radiyallahu canh waxaa la oofsaday xilligii khilaafadii sayiduna cusmaan binu cafaan radiyallahu canh, taariikhdu markay ahayd 8 bisha Safar sanadkii 33 ee hijriga. wuxuuna ku geeriyooday magaalada la yiraahdo Madaa'in oo ku taalla waddanka Ciraaq. allah subxaanahu wa tacaala ha ka wada raalli noqdo salmaanul farisi iyo dhammaan asxaabtii nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.